sheekada kooxda deegaanka Deerjoog ee xilliyadii la soo dhaafay iyo xitaa bilooyinkii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyay waxay ahayd kuwa wajahay caqabado u baahnaa inay u dulqaataan si ay uga gudbaan imtixaan hor yaalay oo ku saabsanaa fahamka dabeecadda dhulka taasoo ay uga gol lahaayeen la soo bixitaanka kheyraadka dabiiciga ah ee Rabbi ku arsaaqay dadka iyo dunyada deegaanka Deerjoog balse iyadoo ay jiraan caqabadahaas oo dhan ayay soo gaareen meesha hadda ay joogaan oo ah mid u baahan sare u qaadis ballaaran iyo ka nadiifinta caqabado ka duwan kuwii horay u taagnaa kooxda deegaankani waa kuwa hami sare leh oo ay ka go'an tahay wax kasta oo ay ku yeelan karaan waqti xaadirkan waxayna u muuqdaan kuwa u dagaalamaya xal u helidda iyo xaqiijinta wax soo saarka dhulka si loo yareeyo gaajada dunyada iyo dadka deegaanka Deerjoog oo weli maankooda ay ka sii guuxayso wareegtada xilliye adkaa ee soo maray dhaqaale yarida iyo fursad yarida haysataa waa cadaadiska kaliya ee riixaya waxayna ku hawlan yihiin qorsheynta qodob kasta oo ay uga gudbi karaan caqabadaha yaryar ee ku heeran si ay u gaaraan halka sare ee hiigsigoodu yahay waxay ka hadlayaan tayada ay leeyihiin sababtoo ah waa kuwa ixtiraam weyn u haya guulihii ay gaareen iyagoo muujinaya in ay leeyihiin xeelado karti ku dheehan rabitaan tabar iyo aaminaad waxayna isku keensadeen xoogooda iyo xoolahooda qalinkana u qaateen qoritaanka sheekadani si ay ugu gudbiyaan ku xeeldheerayaasha cilmiga u leh tabaca dhulka si loo yareeyo loogana hortago faham darrida ka haysata dabeecadda dhulka iyo la soo bixitaanka kheyraadka dabiiciga ah والله مستقبلك وحصل هي أهمنا سنة يقصد بحيزة مهل جديد ووينا أفجوي الوية قاني ميرهود إن لقينا شد عن بهر باباي موسك يومان إساس بحيان يملك بحيان قارها بيرثان كنت مركب جورس إيمانها يوحنس لها والله باشا وحبك ما صوب كلامه الملك واي لكن ما أنت وحوالي يرفع عن المالسة باباي قولا laakiin arrinta ugu weyn ee iminkadan ay xoogga saarayaan ayaa ah in ay jirto shaqo ay tahay inay qabtaan waana inay qabtaan fursaduna u ogolaan mayso inay ka fakaraan daqiiqad labaad waayo waxay ka cabsi qabaan inay saameyn ku yeelato guulahoodii hore ee tabaca horumarineed waxyaabaha dhacay waa hididiilo ku dayasho ka mudan dadka deegaanka marka ay dhacayeense waa marka kooxda deegaanka Deerjoog ay muujiyeen in ay yihiin kuwa wax qabsan kara kana run sheegi kara qalbiyadooda si ay uga gudbaan wareegtada xilliyada adag ee dabiiciga ah sida kooxdani ay tilmaamayaan inkastoo ay ka yara durugsan tahay halkii ay u socdeen haddana waxay muujinayaan inay joogaan xilli ay wax badan ka fahmeen
dabeecadda dhulka iyo faa'iidooyinka tabiiciisu u leeyahay dunyada iyo dadka deegaanka Deerjoog iyo guud ahaan kuwa gobolka Mudug. Fikradan iyo hal-abuurkan hawshan socota ee kooxda deegaankani ayaa ku timid kadib markii ay dadka deegaanka Deerjoog iyo nawaaxigeedu halis u galeen abaaro darna oo isdaba joog ahaa, taasoo galaafatay badi dunyadii ay dhaqan jireen, waxaana ka dhalatay fikradda oraahdan oranaysa fahamka dabeecadda dhulka iyo la soo bixitaanka kheyraadkiisa dabiiciga ee deegaanka Deerjoog. waxaan baraaweynaa sprinklerkii aan ugu tala galnay in uu ka qayb qaato drip irrigation-ka oo ay ugu deeqday iskaashatada Muruqmaal.